maalmahan sida dareemayseen waxaa jiray ama sanadahan waay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo ka dhexeeyay muranbadeedkaasna muddo hadda dheer soo socday waxaa rabaa inaan xog yar ka siiyo meesha uu maanta taagan ardayda waxaa ka codsan lahaa inay dhawqa yareeyaan معلم بقى عندي ومشي المعتاد إنه مش صعود المعلمين تشغلوا الوقت أنا دعوة واحد بالعربتين لبكم يافركم في الشيء أغسطس دولة الصومالية يا دعوتي هذه تقوم هالحين يا روتي دولتي ورق حكومتي ورق ومدحوينها كأها مدحوين حسن الشيخ حمود runtii lafdhabar iyo tiir u ahaa hirgelinta iyo aas-aasidda iyo saldhigidda dacwaddan badda haddii uusan isagu runtii ama xukuumaddaasi aysan waqtigaas nala qaadan lahayna maanta meesha aan joogno maanan joogno aad baan ugu mahadcelinayaa mowqifkii iyo tallaabooyinkii wanaagsanaa ay waqtigaasi la gudboonaa oo ay geysteen taariikhdaana ku sii doonta waxaan kaloo mahadcelinayaa xukuumaddeena iyo dowladdeena maanta oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo qor isku dhiibkii meeshiisii ka qabsaday oo hawshii meeshoodii kala wareegay in ay sii xoojiyaan ama ay sii kobciyaan ama ay sii dhammaystiraan halgankii ee xukuumaddii hore bilowday ayaguna kaalinta u ficneed ka qaaday oo runtii la-aantood aanan soo gaarneen maanta meesha aan iyadana ka joogno dacwadaas sida dowladnimada ahna waa sidaas dowladdii hore waxay qabato inay dowladdanna wanaag ay dhammaystirto waxay taasi muujinaysaa kobaca dowladnimadeenna meesha uu maray inuu aad u sarreeyo oo bisayl dowladeed uu jiro oo danta guud laga wada shaqaynaayo dowlad kasta iyo xukuumad kasta oo dhalata ay wixii wanaagsan ka wada shaqaynayso intaa marka kaga baxo 2014 ilaa hadda marxaladaha iyo dacwada soo martay waa la wada socoteen wax badan lagama noqonayo maanta xaggee bay joogtaa bisha 9-keeda insha allah oo ah maalinta isniinta ah waxaa heeg ka furmaaya dacwaddii Kenya iyo Soomaaliya ka dhexaysay ee muranbadeedka oo ujeedadiisuna ay tahay inay wax kala ahayn dhulkaan idinku aad iska leedihiin xoog baan kaga qaadanayna ma ka yeelin miyaan ka yeelin maya hadday ku arkeen waqtigan dowladnimadeenu inay jilicsan tahay laakiin shacabkeenu ma jilicsan niyadooduna ma jilicsan waxaa u dhiman inay bartaan shacabka Soomaaliya weli mayna baran waxay isku dayday dowladda Kenya caqabad badan oo tacbadaas lagu hor istaagi karo oo aad u fara badan oo intiina badani aad dad aqoon-yahana dowladda Kenya aad garan kartaan oodna la socoteen caqabadii ugu dambaysayna waxay ahayd in ay u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ah maalintii talaadada ahayd oo soo dhaafnay inay u gudbiyeen in maxkamaddu ay muddo sanad ah dib ugu dhigto dacwadda si ay u diyaargaroobaan waxaa halkaa ka muuqda yacni habacsanaanta kayska dowladda Kenya waxay sabab ka dhigeen iyagoo iska bedelay qareennadii horay dacwadda ugu haray taas macnaheedu waxaa weeye qof kasta waa fasiran karaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed waxaa weeye si official ay uga jawaabtay maxkamaddana waa la gaarsiiyey jawaabta dowladda Soomaaliyeed within 24 hours 24 saac gudahood ayaa maxkamaddana jawaabta loo baahnay oo ah in dacwaddii sideeda loo dhagaysto na dib loo dhigin sabab macquul ahna aanay Kenya soo gudbisanin mowqifka dowladda Soomaaliyeed taasoo ah sabab sababaysan waxaan rajaynaynaa
qawaaniintana aan uga barannay ku aragnay maxkamaddana aan uga barannay inay ruuliska iyo shuruucda u yaalla ay raacayso maxkamaddu oo ay diidi doonto codsiga Kenya aqbali doontana codsiga iyo jawaabta Soomaaliya waxaan rajaynaynaa in galabta beri subax ilaa berri galab inta ugu dambayn ay jawaabta soo saari doonto maxkamadda caalamiga ah ee Kenya ayna diidi doonto insha Allah codsiga Soomaaliya codsiga Kenya in aqbali doonto jawaabta Soomaaliya diyaargarowga dowladda Soomaaliyeed waa meeshii ugu sarreeyay waxaan diyaar u nahay inaan difaacno annagoo wada jirna dowlad shacab qareeno caalami ah iyo koox khubaro Soomaaliyeed ah oo wada jiraba inaan difaacno dhulkeenna qalinna ku difaacno qorina ku difaacno waxaa waqtiga hogaaminaya dacwadda ka qaybgalaya oo muujinaya sida xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed uga go'an tahay in dalkeeda difaacdo ra'iisul wasaare ku-xigeenka qaranka mudane Fadal Guuleed ayaa wafdiga hogaamin doona taas waxaad ka dareemi kartaan miisaanka ay dowladda Soomaaliyeed dacwaddan u leedahay waxaana rajaynaynaa go'aan aan ku faraxno inuu ka soo bixi doono dacwadda dhegaysigeeda markuu dhammaadana go'aan bay u diri doontaa insha Allah go'aankaasna waxaan qiyaasaynaa ugu badnaan qiyaasta aan qabno 6 bilood inaanu dhaafin u ka yaraan karaa uu ka badan karaa laakiin qiyaastaan samaynayno waa sidaas maalmahan sidaa dareemayseen waxaa jiray ama sanadahan waay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya uu ka dhexeeyay muranbadeedkaasna uu muddo hadda dheer soo socday waxaan rabaa inaan xog yar idinka siiyo meesha uu maanta taagan ardayda waxay ka cabsan lahaa inay dhawqa yareeyaan macallin baan ahaan jiray oo ma jeclin ardayda inuu ku soo socdo macallimiinta shaqadooda waa taqaanaan dacwaddan waxay bilaabatay 2004 bishii Agoosto dowladda Soomaaliyeed ayaa dacwadooday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii dowladdii hore ama xukuumaddii hore oo uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii lafdhabar iyo tiir u ahaa hirgelinta iyo aasaasidda iyo saldhigidda dacwaddan badda haddii uusan isagu runtii ama xukuumaddaasi aysan waqtigaas nala qaadan lahayna maanta meeshaan joogno maanan joogno aad baan ugu mahadcelinayaa mowqifkii iyo tallaabooyinkii wanaagsanaa ay waqtigaasi la gudboonaa oo ay geysteen taariikhdaana xusi doonta waxaan kaloo mahadcelinayaa runtii xukuumaddeena iyo dowladdeena maanta oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo qor isku dhiibkii meeshiisii ka qabsaday oo hawshii meeshoodii kala wareegay in ay sii xoojiyaan ama ay sii kobciyaan ama ay sii dhammaystiraan halgankii ee xukuumaddii hore bilowday ayaguna kaalintii u ficneed ka qaatay oo runtii la'aantood aanan soo gaarneen maanta meesha aan iyadana ka joogno dacwaddaas sida dowladnimada ahna waa sidaas dowladdii hore waxay qabato inay dowladdanna wanaag ay dhammaystirto waxay taasi muujinaysaa kobaca dowladnimadeenna meesha uu maray inuu aad u sarreeyo oo bisayl dowladeed uu jiro oo danta guud laga wada shaqaynaayo dowlad kasta iyo xukuumad kasta oo dhalata ay wixii wanaagsan ka wada shaqaynayso intaa marka kaga baxo 2004 ilaa hadda marxaladaha iyo dacwada soo martay waa la wada socoteen wax badan oo lama noqonayo maanta xaggee bay joogtaa bisha 9-keeda insha Allah oo ah maalinta Isniinta ah waxaa heeg ka furmaya